kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka hadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa kamid ah dil ka dhacay magaalada Beledweyne oo dhaliyay in la xiro wadooyin muhiim ah kadib markay shacabku dilkaasi ka gadoodeen Al-Shabaab oo weerar cusub ku qaaday saldhiggii ay ciidamada Liyu Boolis ku lahaayeen iyagoo madaafiic ku weeraray waa kuma mahad soomane qareenka Soomaaliga ee difaacay William Ruto oo hadalhayntiisu baraha bulshada aad u qabsatay qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino aynu ku bilownay faahfaahinno dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dil ka dhacay magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Howlwadaag halkaasi oo askari ka tirsan ciidamada booliiska uu ku dilay mid ka mid ah darawallada gaadiidleyda ka shaqeysa gudaha magaaladaasi darawalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Faarax Sharar ayaa u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaadhay dhowr xabadood oo uu ku dhuftay askarigaasi kaasi oo markii hore ay ku murmeen lacag uu darawalka askarigu ka doonayay askariga dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta uu dilku ka dhacay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal wararka ayaa intaasi ku sii daraya in maleeshiyad hubaysan ay ka gadoodeen dilka darawalka loo geystay iyagoo xidhay wadada buundada liiqliiqato ee magaalada Beledweyne iyagoo oo sheegay inayna furi doonin ilaa laga keeno dambiilaha dilka geystay ma aha markii ugu horeysay uu ka dhaco dilal noocani oo kaliya magaalada Beledweyne waxaana xusid mudan in dhowr jeer dilal noocan oo kale ah ay ka dhaceen magaalada Beledweyne si kastaba ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga magaalada Beledweyne oo la xidhiidha dilka loo geystay mid ka mid ah darawallada gaadiidka dhanka kale wararka naga soo gaadhaya deegaanka Yeed oo ka tirsan gobolka Boqol ayaa sheegaya in saldhig ay halkaasi ku lahaayeen ciidamada Liyu Booliska ee dowlad deegaanka Soomaalidu ay weerar madaafiica ku qaadeen xubno ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan inay maqleen jugta madaafiicda oo qaarkood ku dhaceen xerada ciidamada Liyu Booliska balse ayna caddayn karin khasaaraha ka dhashay shabaab oo ka hadlay weerarkaasi ayaa sheegay inay madaafiic ay la heleen gudaha xeradaasi isla markaana khasaare xooggan ay ku gaarsiiyeen ciidamada Liyu Booliska si kastaba ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta khasaaraha ay sheegteen kooxda argagixisada Al-Shabaab wararka ayaa waxay intaasi ku sii darayaan in ciidamada Liyu Booliska dhankooda ay madaafiic ku jawaabeen isla markaana ay dhowr madfac ay ku tuureen deegaanada ku dhow deegaanka Yeed ee gobolka Boqol wararkii ugu dambeeyay naga soo gaadhaya deegaanada Yeed ayaa waxay sheegayaan in hadda xaaladdu tahay mid degan weerarkan ayaa ah kii ugu horeeyay ee Al-Shabaab ku qaado ciidamada Liyu Booliska kadib dagaalkii xoogganaa ee labada dhinac ku dhex maray xuduudda dabayaaqadii Julaay iyo horraantii Agost dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo xoog leh oo labada dhinac kala gaadheen iyada oo mid walba uu sheegtay inuu midka kale uu ka dilay boqolaal askari waxayna Al-Shabaab ku guulaysatay in dhowr boqol oo kiiloomitir ay gudaha u gasho Itoobiya iyadoo ciidamada Liyu Booliska dhammaan Al-Shabaabtii gudaha u gashay dowlad deegaanka ay waxay dileen iyo waxay qabteen ka dhigeen haatana maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta oo Jimcaha la filayaa inay soo gabagabayso dhageysiga dacwadda la xidhiidha doorashadii madaxtinimada ee Kenya qareen u dooday guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Kenya iyo madaxweynaha la doortay ee William Ruto ayaa ka hor yimid codsi musharax madaxweyne Raila Odinga iyo 6 qof oo kale oo doonayay inay meesha ka saaraan natiijada lagu dhawaaqay ee doorashadii 9kii Agost qareenka ayaa ku booriyay maxkamadda inay meesha ka saarto dacwadda ay soo gudbiyeen Odinga iyo kooxdiisa isaga oo sheegay inayna soo bandhigin caddaymo ay ku taageerayaan sheegashadooda waxay ku xujeeyeen inay keenaan caddaymo muujinaya nidaamka teknolojiyadda ee natiijada doorashada in la farageliyay waxayna ku eedeeyeen kooxda Raila inay sameeyeen qalalaasa dastuurka ka hor imanaya si ay u gaadhaan danahooda siyaasadeed
Qareennada ayaa ka jawaabi doona su'aalaha iyo caddeymaha ay rabaan 7 garsoore ee fadhiga maanta oo Jimco ah. Garsoorayaasha ayaa markaasi kadib dhammaadka isbuuca qori doona xukunka, waxayna Isniinta soo saari doonaan go'aan kama dambaysa ah oo maxkamadda ah. Qareennada u doodi doona guddiga doorashooyinka Kenya ee madaxweynaha waxaa ka mid ah qareen Soomaali ah oo lagu magacaabo Mahad Soomane, kaasi oo shalay markii uu doodiisa soo gudbiyey kadib dadku ay aad u hadalhayeen. Inta badan doodiisa waxay ku qotontaa sharaxaadda la xidhiidha qaabka teknoolojiyadda ee loo isticmaalay doorashada, taasi oo ay kooxda Raila ku doodayaan in la farageliyay doorashada. Baraha ay bulshadu ku xidhiidho ee Kenya, gaar ahaan Twitter-ka, ayaa waxaa tan iyo xalay ka taagnay hadalhayn la xidhiidha qaabka uu qareen Mahad u soo bandhigay doodiisa, iyada oo dadka qaar ay la dhaceen halka kuwa kalena ay dhaliileen. Soomane waxa uu ammaan ku soo jiitay sida uu u qeexay macluumaadka teknoolojiyadda iyo erayada sharciga ah ee uu adeegsaday, isaga oo difaacay guusha madaxweynaha la doortay ee William Ruto. Soomane waxa uu ka qalin jabiyey 2005 jaamacadda Nairobi, isaga oo markaas qaatay shahaadada koowaad ee sharciga, halka 2007 uu ka qaatay Postgraduate Diploma kulliyadda sharciga ee jaamacadda Nairobi, sida uu qareenku ku soo qoray bartiisa. Sanadkii 2010 waxa uu ka qalin jabiyey dugsiga Harvard Kennedy, isaga oo qaatay shahaadada masterka ah ee kulliyadda siyaasadda horumarinta dhaqaalaha caalamiga ah. Sanad kadib 2011 waxa uu shahaadada labaad ee sharciga ka qaatay isla jaamacadda sharciga ee Harvard. Mahad wuxuu wax ka diyaariyey sharciga iyo shirkado hay'ado waaweyn oo ay ka mid yihiin hay'adda Bill iyo Melinda Gates Foundation oo Maraykan ah. Waxaa aasaasay Bill Gates oo ahaa aasaasaha Microsoft, kana mid ahaa bilyaneerada ugu caansan ee adduunka. Markii ugu horreysay waxa uu soo shaacbaxay sanadkii 2017, kadib markii uu guddigu qandaraas ku siiyey inuu ku matalo maxkamadda ugu sarreysa ee dalkaasi Kenya. Inta ay socotay dacwaddii ka dhalatay muranka doorashooyinka madaxweynaha, hadda waa markii labaad uu maxkamad ka difaaco guddiga doorashooyinka. Waxa uu shuraako ku yahay Gareen iyo Soomane Advice, oo ah shirkad sharci oo fadhigeedu yahay Nairobi, iyadoo Mahad Soomane uu qabsaday baraha bulshada iyo qaabka uu sharaxaadda uga bixiyey, taasi oo hadalhayn badan dhalisay. Haddaba arrimaha doorashooyinka Kenya ayaa muddooyinkii u dambeeyay aad la isugu dheggan yahay, iyada oo hadda maxkamadda la wada sugayo go'aanka ugu dambeeya ay ka soo saarto. Haddaba arrimahaas iyo qodobada kale ee warkeennaba wixii ku soo biira wararkeenna dambe ayaad kaga bogan doontaan.